صاحبي يا أهلا وسهلا. haddii aan la idmo waxaan videogan inaan si kooban uga hadlo doonayaa qaabka ganacsiga marka la rabo in faa'iidada meherada lagu kala baxo ama faa'iidada ganacsiga ay rabaan saddex qof iyo wixii ka badan ama laba qof oo kale inay qaybsadaan. qaabka very simple-ka ah ee faa'iidada meherada loo qaybin karo iyadoo barnaamijka Kuubuga la isticmaalayo. haddii aan la idmo barnaamijka Kuubugu waxaa jira casharo koorsooyin dhammaystiran oo aan ka sameynay. haddii aad u baahan tahay waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarka saaran shaashada. haddii aan la idmo waxaa jira in aynu sameynay buug loo yaqaano carwo qadar ganacsigan marka waxaa sameeyey saddex qof baa ganacsigan sameeyey oo ownership-ka ah. ganacsigan marka waxaa la doonayaa muddo kadib in faa'iidada la qaybsado. qaabka faa'iidada dividend baa loo yaqaanaa. dividendku waa faa'iidada la qaybsado marka ganacsiga wax la iibiyo oo sales la sameeyo ama marka ganacsigu faa'iido ka helo alaab ama badeeco uu iibiyey. okay waxaan tegi doonaa report baan tegi doonaa. kadib waxaan eegaynaa ganacsigeena faa'iidada uu sameeyey ama net income-ka uu sameeyey. net income-na waa loo yaqaanaa. marka net income waxaa la dhahaa waa faa'iidada saafiga ah oo wax mataqaanaa kharashaada ama wax cashuur ama wax mataqaanaa markaa kale aysan ku jirin. waa faa'iido saafiya noqonaysaa net income-ka. marka net income-ka waxaa la doonayaa inay qaybsadaan saddex qof. waxaa qaybsanaya Axmed oo ganacsigan kusoo maalgashaday $4,000 iyo Xamdo oo ganacsigan kusoo maalgashatay $4,000 iyo Cumar oo kusoo maalgashaday ganacsigan $4,000. marka ganacsigan lacagta ay soo maalgashadeen waa 500. lacagta ay faa'iido ahaan u heleen waa 530. lacagta laakiin ay soo maalgashadeen waa $12,000 bay noqonaysaa. marka $12,000 ayay qasnada kusoo shubteen oo midkiiba wuxuu soo maalgashaday lacag dhan. wata lacagtan waxaa laga soo xariiriyey general journal ayaa laga soo xariiriyey. investmentkii koowaad buu ahaa. marka waa initial investment baa loo yaqaanaa. lacagtan $12,000 bay gaadhaysaa. saddexdaa qof aana soo maalgashaday. haddii aynu dib u raacno waa kan saddexda qof baa soo maalgashaday Xamda iyo Axmed iyo Cumar midkiiba $4,000 ayuu soo maalgashaday. okay waxaan eegaynaa marka qaabka faa'iidada loo qaybin karo. lacagtan waa $530. $530 waxaa doonaynaa inaan qaybino saddex qof u qaybino. okay sida caadiga haddii calculator-ka aan la soo baxno oo aan qaybino 530 aan u qaybino saddex qof qofkiiba wuxuu yeelanayaa 176.66. okay intaa ayaan soo koobgaleynaa copy baan leenahay. haddii barnaamijka Kuubuga inaynu ku sameyno inaynu saddexdaa qof kasta faa'iidadiisa aynu siino muddo kadib. net income baa la dhahaa. waa ganacsi shaqaynayay. ganacsiga net income-ka faa'iidada uu helay waxaa la doonayaa in saddexdaa qof loo qaybiyo oo mid kasta ay 4,000 kusoo maalgashaday in 4,000 kadib muddo kadib ay lacag ugu biirto. okay skip baan leeyahay. waxaan tegayaa company baan tegayaa si aan dhacdadan u diiwaangeliyo. waxaan tegayaa make general journal baan tegayaa. okay dhacdadan waxay noqonaysaa date-ka ayaan saxan doonaa. date-ka maantaan ka dhigaynaa. okay dhacdadan waxay noqonaysaa dhacdo dividend. dividend waxaa loo yaqaanaa faa'iido wadaaga ama share in la wadaago. dividend number 1 baan iska odhanaynaa iska soo gaabsanaynaa dividend number 1. okay dan waxaan leenahay dhacdadu waa dhacdo la hagaajinayo iyadoo tigta ka qaadi mayno. tigta waa saaraynaa oo dhacdo hagaajinayna noqonaysaa. okay halkan waxaan soo gelinaynaa akoonka lacagta ku jirto. akoonka lacagta ku jirto waa akoonka loo yaqaano net income. marka net income-ka waa akoonka faa'iidada. marka waysid arganaynaa akoonta yaran ka dhigaynaa income weeye akoonkan type-kiisu. okay dan halkan waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay faa'iido weeye. waa faa'iido waa lacag la qaybsanaya waan leenahay. okay waxaan leenahay save and close. okay lacagtaas waxay gaadhaysaa $530. halkan waxaan ku qoraynaa waa faa'iidadan ku qoraynaa memogu wuxuu noqonayaa faahfaahinta waa faa'iidada ganacsiga. okay dadina tab baan ku soconaynaa. okay dadka loo qaybinayo oo kale Xamdo oo kale ganacsiga waxay marka creditka okay debitka faa'iidada ka siyaadaysa creditkana way ka yaraanaysaa maadaama lacagtii la bixinayo. okay halkan waxaan gelinaynaa lacagtaan soo koobi garaysanay control v baa leenahay. qof kasta wuxuu yeelanayaa 176.66. okay tab baan ku soconaynaa. inta kale marka Cumar isna ganacsigu soo maalgashaday isna wuxuu yeelanayaa 176.66. okay qofka ku xiga wuxuu noqonayaa Axmed Axmed intaas soo maalgashaday. okay hadhow weyn debitkaaga iyo creditkaaga weyn isla kaadaan. weyn debitka iyo creditka labaduba way noqdaan equal way noqdaan debitka iyo creditka. marka lacagta la soo maalgashaday ee faa'iidada ganacsigu shaqaynaya muddada waxay noqonaysaa 530 bay noqonaysaa. waxaa la doonayaa in saddexdaa qof si equal ah loogu qaybiyo. okay dhacdada waan seegbareynayaa kadib waxaan aadayaa akoonnada ay saameynta ku leedahay. okay waxaan tegayaa saano kale reportka waxaan tegayaa balance sheet kan tegayaa si aan u eego qof kasta faa'iidada u korodhay.
اوكي احمد marka hore 4,000 buu haystay hadda 136.6 ayuu noqday xamdana 4,000 buu haystay hadda 4,136 ay noqotay 0.66 اوكي عمر 4,000 buu haystay 4,136.66 account-kii net income-ka ahaa meesha waynu ka saarnay account-kii net income-ka ahaa meesha ka saarnay so qof kasta faa'iidadiisa waa la siinayaa marka maalgashiga marka laga reebo qof kasta faa'iidadiisa waa la siinayaa ama loo haynayaa aad iyo aad baa sintii saaxiibayaal youtube-keena follow iyo like-ta iyo share-ta ku share garay haddii alla idmo إن شاء الله قبتان أخوين تنورك عادي أدوما ستين